رسول الله. أما بعد شركة شرايد أنا هلك قمرنا مانتا وحاو معدي سؤالته وداهي هاي وباع نبضات وأن soo jeedinayno dadkii ama beerihii ay ku dhex martay dhacdadii foosha xumayd magaalada ama degmada Darweyn runtii waxaan aad uga tiiraayeysanay wixii dhacay waxa dhacay xasuuq aan garan karaynin waxa aan ku metelo saacada gudahood ayaa dhowr iyo 10 20 ku dhawaadna dhinteen dhowr iyo 30 dhaawacmeen dadka waxa isu geysanaya waa dad ehela oo wada dhashay oo isku guriya oo aan meel laba loo kala saari karin haday tahay degaan iyo haday tahay isir iyo haday tahay xidid meel allaale meel loo kala saari kara ma jiro in cadownimada iyo axmaqnimadaas u dhacdo oo dhagxumadaas u dhacdo ayaa waxay noqotay murugo iyo muraarad dilaac aan marnaba dadka dhagahoodu jeclaysan wixii ilaahay ka baqaya ee halkaas taasaan doonaynaa inaan ka hadalno waxaan leeyahay marka ugu horeysa tacsi ayaan diraya dad baa goblamay dad baa agoomoobay dad baa naafoobay dadkaas waxaan u dirayaa tacsi waxaan leeyahay wixii dhinteen Ilaahay u naxariisto waxa dhaawacana Ilaahay ha caafiyo wuxuu ahaa shaydaan baa ka shaqeeyay anigu oran maayo waqadir alle ربنا ما يأمر إلا ضيق وحي شيطان باله هنلاقي هاي طلو كعلو حكتوي ابتيالو ما أنت واحد دعي وشلي دعي وصورنا ونقضي واحد دقيه دتك الديدين ولقوا عيبوبي وآن وحي إسلامي إيه مغلي أي ليا بيهن وشعليسته waxaa leeyahay war dadka meesha ku nool waa dad sidee ah war maxaa garaadkii ka xayay war waa maxay waxa lagu dhimanayaa ee lagu hoobtay war waxa meesha yaala ee qarada leh ee dadka lagu hoobanaya waa maxay waxaan leeyahay wax allaale iyo wax adduunyaale wax meeshaas dadku sida inay ugu dhintaan maanta aanu garanayno deegaankaas aanu ka nimo ma jiraan dadkaas dad hore isu leen jiray maaha waa dad isdhex gala oo walaala oo isku nool ah oo aan cid Ilaahay abuurtay oo isaga dhawaari jira guri walba waa laga baroonaya way soo noqnoqo Ilaahay baanu idinku dhaarinay aan joojin colaad oo Ilaahayni ana abuurtay aanu soo noqon oo dilka soconaya iyo dhigtalowga aan iska dayn oo dhibaatada soconaysa aan joojin hal la jooji oo dadka wax magaratada ah ee dhalinyarada ah ee dagaalka wada aan ka adkaan taa waxaan leeyahay taasaan leeyahay dib ay u dhicin maanta way nagu dhacday shalayna waxaanu islayn waxba dhamaystirteen anigu waxaan ahaa mar kasta oo ay dhacdo waxaasu arintaas dhibta caynkaas haddaan galbeed joogana guuraan ku geli jiray haddaan bari joogana rasaastaan bidix geli jiray maanta wax allaale waxaan ku hadlaan garan waayo waxaanu islayn waa dhamaysteen oo waa gacan mariseen oo waa heshiisiiseen ama baa kala qaadeen oo bomba u kala dhigteen ayaanu islayn ma aanu filaynin maanta intaan kala dhacdo aan leeyahay iyaga intaasaan u jeedinayaa ummadda reer Somaliland waxaan leeyahay meeshaas waxay u baahan tahay gurmad qaran waxay u baahan tahay ficil in laga qaato in loo tago in dadka la qabqabto oo dadka aan loo nixin baan leeyahay si aan arrinta u dhicin
dowladda Somaliland oo aan ku ammaanayo ciidamadeeda iyo madaxweynaheeda iyo madaxweyne ku-xigeenkeeda iyo dhammaantoodba inta ilaa hadda ka qabteen aan ku ammaanayo iyo tii horeba siday u ilaalinayeen iyo dhowr iyo 10 bilood inay kala dhex joogeen waxaan leeyahay go'aan adag oo dowladnimo oo aan la isugu soo noqon oo ayadaan ugu taray ka qaad waana idinku ammaanayaa inta ka qabateen waana idin sugaynaa waana idinku baaqaynaa inaad wax ka qabataan arrinta waxaan kalaan leeyahay dadka waayeelka ah ee telefishinada ka hadlaaya ee dadka madaxdiisii ah walaalayaal halkaa waxa inoo ka furan oo qura innaga nabadayn iyo isu soo dhoweyn iyo hadal wanaagsan iyo wixii waayeel lagu ogaan jiray baa inoo ka furan wax kaloo inoo ka furan maanta ma jirto waajibkaa ha la qabsado wixii hadal ka dhacayna ha ka toobad keeneenoo hay ka toobad keeneenoo xaal ha ka bixiyeenoo telefishinka dib ha uga hadleen wixii kale aan ka hadlinna wanaagka kaga hadleen waxaan kale oo aan aad u ceebaynaya telefishinka qaranka oo inta inaan qaatay kamarad uu dadka Hargeysa jooga la dhex qaaday qof mas'uula qof aan mas'uul ahayn qof biir qaba qof waalan oo uu weydiiyey ka warramayeen madax dhaqameedka sida yihiin qof waliba wuxuu doon ku hadlay ay iyo aflagaado iyo xumaan iyo sharaf ka qaadis iyo edab darro ayaa lagu hadlay waayo dad la soo ururiyey oo la garanayo in la weydiiyo way ahay oo hool lagu casmeeyo leeyada ka warrama madax dhaqameedka laga warramaya de waa inta laga cabanayo wax geysatay maaha madax dhaqameed oo dhan qofkii wax geysta de isaga ku khaasta madax dhaqameed firadoo yiri aan wax qaribno oo aan dagaal iclaamino oo aan cid maagno deemay jirin ciddii wax ka dhaceen baa la yiraahdaa hebel ka warrama laakiin madax dhaqameed ka warrama dabeedna dadaan qayr mas'uul ahayn waxay doonaan ay ku hadleen oo telefishinka qaranka laga soo daayay aad baan u cambaaraynayaa waxaana leeyahay dowladdu waxa ka qabato weliba wasiirka warfaafinta waxaan leeyahay arrintaa waa in laga daba tagaa shakhsiga soo daayay iyo cidda ka mas'uulka waa in lagu xisaabtamo wax aad fooxun bay ahayd magaalada Hargeysa lala dhex qaaday caymaan hadhin afxumaan hadhin sharaf ka qaad baan hadhin madax dhaqameedku waxay ka shaqeeyeen nabadgelyada dalkana way la soo tabceen heer bay soo gaarsiiyeen laakiin haddii qaar ka mid ah khaldamaan maaha madax dhaqameed in loo wada saaro maaha in dadka sharafta laga qaado maaha in aan waxba loo reebin maaha in qof kasta la weydiiyo dad baa la weydiiyaa waxa expert ku ah oo nabadda expert ku ah oo talada expert ku ah dadkii la weydiiyaa anigu wada waag maayo laakiin qof walba garaadkiisu ka jawaabo laakiin ummad bay ahayd la dhex mariyay taana intaasaan ka horanayaa waxaan kalaan in yar kaga darayaa waxaynu ka soo baxnay doorasho waxa aynaan jirkeenu la shaqeynayna dimuqraadiyadda la yiraahdo dadka aynu ka barannay 5 sano mar bay isqaawiyaan oo maryaa dhigtaan oo kaambeynaan oo dunidoo dhan lagu qayliya oo dhibay qabtaan oo hadlaan maalintaa cid ku guuleysata arrintii la ilaawo wariyaaye waxaynu garanaynaa ma wax doonaysaa inuu 5 sano soo socdo qaawanaana oo sidii maalmihii kaambeynka loo wada hadlaa oo aan xanaftii iyo hadalkii xumaan la joojin aan maryaa xiranno hadalkii xumaan aan joojinno wixii aan ku soo celinno ciddii ku guuleysatay ee ilaahay u qoray baa heshay waxayna la gudboonayno wax la dhisno oo wax la qabanno oo wixii dhacay iska saamaxno oo hadalkii xanafta lahaa iloogno oo waayeelnimadii iyo garaadkii cidun baa heli lahayd aynu ku soo noqonneen hadalkii dhibaatada lahaa ee waqtigii kaambeynka aan joojinno hadalkii dhibaatada lahaa ee kaambeynka aan joojinno kelmadda leeda jeegaan waa kelmad cadow reer Somaliland ku soo dhex tuuray cid bixisay ma garanayno meel ka yimi garanayno kelmadda afka leeyno ku riday meel walba waa laga hadlayaa kelmadda jeegaanta waxa ogaataan anigu waxaan oran lahaa kelmadda cadowga Somaliland ku soo dhex tuuray
وكلمة أينان لهين وكلمة عدوجينا كلمة دا أنجوجينو وحي كوها لنا وحلي ويخلديهين كلمة دا هلا داي كلمة دا هلا داي كلمة دا أشيغان وكلمة حم وكلمة سكدرة وكلمة حنفتة تقول لسي وكلمة أينان قرانين ميل كتمي وكلمة أينان قرانين ميل بحسي عدوج الصومالي لام بحيي كلمة دا أنجوجينو ويل كانوا ترى أن يسقون نغنو سيدي السلطان كي يقول هيجي ترى أنه أقول له وشرب أنه أقول له ووضع هذا البان أقول له وقوبتي والبوا أقول له أن سومالي لا كفكرنو أن جودهان كفكرنو أن نبدأ كفكرنو أن نبت كأن كفكرنو أن دنتين كفكرنو أن يسقون نمادنا أن يسقون نمادنا دن وأنا أقول له هاي وأنا قلت لنا وحين قصوا قيب أبابنا وكجلنا وبالله توفيق إلهي وحن كبر يا إنه علادي نجتوتيو أحمد غير قبتين نسيو كعنتها ما أنت العدايا إنه قدام بيسو إلهو كعنتها ما أنت العدايا إنه قدام بيسي إلهو ولا لمدي تتكاسيان وكجرت سني وكسو علي إلهو هبر لما كدك إلهو هدر وورابل لما إلهو هبر لما كدك إلهو هبر لما كدك وبالله توفيق.